dhulka taala oon miirkeeguba joogin bay aragtay. way qaylisay, hooyaa soo oroday. macni markay qaylisay hooyaa soo oroday, dhakhtarkaa la idhigay. waxaan ku jiray dhakhtarka 3 cisho. waxaa la ii keenay mobilkayga, yani waxaa la ii keenay mobilkayga. waxaan arkay wicitaankii macalinka, yani macalinka de ballan baa kala dhacaysay. macalinka wicitaankiisa aragtay. markii macalinka wicitaankiisa aragtay dee waa wicitaankii macalinka way ugu ii ballansanaa, yani wuu ballansanaa. walaashay ayaa ka qabatay, yani walaasheed baa ka qabatay una sheegtay in xanuunsan tahay. inaan xanuunsanahayna waxa u sheegtay bay tiri walaashay, qoftii mobilka lahayd. xanuunsan tahay qoftii mobilka lahayd. wuxuu weydiiyey waxa igu dhacay, yani macalinkii markaa u sheegtay inay xanuunsan tahay wuxuu weydiiyey waxa igu dhacay. waxay u sheegtay in mar kaliya garaaca wadnuhu hoos u dhacay, yani dee mar kaliyaba inuu wadnaheegu garaaciisiiba hoos u dhacay. dee waayo taasna waxaa keentay in hoos u dhaco qofkii ay jeclayd, nolosha la wadaagaysay, de mustaqbalka dhiganaysay, ay jeclaydna inay ooridiisa noqoto, inay xaaskiisa noqoto, inay mar un aqal de isagu leeyahay ay dee hal mar un uu kasoo kacdo, ay niyadeeda ahayd baaba dee la qaatay. markaasaa darteed uu garaaca wadnuhuna hoos ugu dhacay. haddana way fiican tahay, yani waxay u sheegtay markaa inuu garaaca wadnuhu hoos u dhacay, iminkana ay fiican tahay. run ahaantii wuxuu ahaa qof aada u wanaagsan. wuxuu igu soo booqday dhakhtarka maalinkii labaad, yani 3 cisho dhakhtarka ku jirtay. maalinkii labaad buu soo booqday, laakiin ani ma ogeyn, yani iyadu ma ogeyn, koomay ku jirtay. waxaan wacay saaxiibtay, waxaan weydiiyey sababta ay ii qiyaantay, balse mobilka igamay qaban. yani waxay rabtay inay weydiiso saaxiibtay sababta ay u qiyaantay, laakiin mobilka kamay qaban. mobilka igamay qaban. waxaan u qoray fariin sidana: run ahaantii haddii aad jeclaatay maxaad iigu sheegi weyday, waan kaaga tanaasuli lahay. yani saaxiibtayay waxaad ahayd walaashay, dadka o dhan adiga dartaaban ula dagaalamay. xataa heer waxa ay gaadhay ay tiraahdo haddii aan awoodo cimrigayga ayaan u bedeli lahaa. yacnihii qof saas ay ka dhigatay bay ahayd. markaa waxay tidhi run ahaantii haddii aad jeclaatay maxaad iigu sheegi weyday, waan kaaga tanaasuli lahay. yani saaxiibtay haddaad adigu jeclatood ka heshayba maxaad iigu sheegi weyday, waan kaaga tanaasuli lahay. tanaasuli lahay hal maroon maad idhahdid qofkaa waan jeclahay. yani hal mar oo keliya un maad idhahdid hebel waan jeclahay, waan kaaga tegi lahay. idhahdid qofkaa waan jeclahay. maxaad ii lugoysay? saaxiibtinimadeedu sidaa may ahayd. ballan ayaad iga qaaday inaad waxaa iga qarinayn, yani inaad waxbaba iga qarinayna ballan ayaad hore iga qaaday. laakiin saaxiib hooyaday dhaafsiisan ma aanan lahayn. yani saaxiib hooyaday dhaafsiisanna ma aanan lahayn. waad ogeyda de adiguma saaxiib kula ahaaye oo wax walba adigaan kaa dhigtay, maxaad saa igu samaysay? masaas ayaad saaxiib ka dhigtay, yani masaas ayaad saaxiibtinimadeeniiba aad ka dhigtay. balse nolosha meel wacan mar allana ha ku garab galo, allana ha kula garab galo, noloshana meel wacan baan ku rajeyna. waayo de saaxiibteedoo qiyaantay mana habaari karto, dee waxay samaysana ma taqaano. maysa soo jawaabin. qalbigaygu gubanayey, saacad walibana waan ilmeynayey. muddo 4 cisho ah markii ay kasoo wareegtay dhakhtarka kasoo bixidaydii, yani markii 4 cisho dhakhtarka ku jirtay kasoo wareegtay, markaa 4 cisho markay dhammaadeen dhakhtarka kasoo bixitaankeygii ayaa waxaa dhacday meherkoodii. yani maalinkaas waxaa dhacay meherkoodii. waxaan tegay gurigoodii si aan ugu soo hambalyeeyo. yani wayna ka qaboobi weyday saaxiibteed, wayna ka joogsan weyday. waxayna istirida saaxiibtaa mar hadday adisan kuu gashay, de bal adigu orado bal usoo hambalye. ya gurigoogii meherkoodii hambalyeeyo. markii aan tegay guriga ayay si jaasjaasa iigu tiri, ma inaad ninka iga soo doonato ayaad iigu timiday. yani kamay filaynin de inay saa ku tiraahdo, laakiin markay gurigii ugu tagtay, yani iyadu waxay u socotay inay usoo hambalyeyso saaxiibteed, laakiin si jaasjaasaba waxay iigu tiri bay ku leedahay, ma inaad ninka iga soo doonato aad iigu timiday. saaxiiba gabdhow inigana saaxiibadiin masaasa mise waa weli waxbaa nii dhiman.
soo doonatay timid ilaan weligaaba doqon aan iska watay ayaad ahayday. yani doqon aan weligaaba iska wadwadan jiray baad ahayday. waxaa igalay ficil kan ugu xanuunka badan. waxaan dhahay hambalyo igana raali noqo. waxaan imiday guriga gabadh dugsiga isla dhigan jirnay oo arinka ogeyd. yani gabadh aan dugsiga isla dhigan jirnay oo arinkaygana ogeyd gurigoogii baan imiday iga raali noqo. ya waayo dee waad ogtahay markaad qofkii markuu isku kaa bedelo gurigoogina aad joogto weji kalena aad kala kulanto dee waxaad samaysana mataqaanid. markaa waxay tihi ficilka kan ugu xunna way igalay. saasna waan ku dhahay. waxayna raadisay macalinka nambarkiisii. waxaana raadiyey de markii ficilkaas uu galay waxay raadisay macalinka nambarkiisii. waxayna u sheegtay wax kasta oo dhacay. yani macalinka nambarkiisii bay raadisay. gabadh dugsiga isla dhigan jirnay oo arinka ogeyd waxayna raadisay macalinka nambarkiisii. yani gabadha ay dugsiga isla dhigan jireen baa macalinka nambarkiisii raadisay. waxayna u sheegtay waxay raadisay macalinka inay nambarkiisi. waxayna u sheegtay wax kasta oo dhacay. run ahaantii aad ayuu uga xumaaday. waxauna igu samaysay wuxuu iigu imiday guriga. yani markay de gabadha aan de dugsiga isla dhiganayeen ee arinka ogeyd ay u sheegtay macalinkii wax walba de wuxuu aad buu uga xumaaday arinkii ay de saaxiibteed ku samaysay. kadib wuxuu iigu imaaday guriga isagoo raaligelin ii wada. yani guriga ugu tegey si uu u raaligeliyo arinkii dhacay iyo de sida sheekadu u dhacdayba si uu uga raaligeliyo gurigu ugu tegey. waxaan u sheegay waxaasoo dhan inay dhammaadeen. yani sheekooyinkaasi waxaasoo dhanba inay dhammaadeen oo aanu reerkayga waxba u sheegin. yani reerkaba inuuna waxba u sheegina waan kala tashtay iyadoo iyo isaguna farxad ku noolaadaan. yani labadoodina inay farxad ku noolaadaan oo farxadda tii ugu dambeysay inay ku noolaadaan. habeenkii sidii ayuu iiga tegey. yani habeenkii sidii ayuu kaga tegey gabadha iyadii oo farxadda inay ku noolaadaan markay u rajeysay iyo wixii oo dhan habeenkii oo dhan sidii buu kaga tegey. wuxuuna wacay iyada si uu ula sheekaysto una weydiiyo waxaa sababay inay shirqoolka ii dhigto. yani iyaduu wacay soo waqti ula qaato ula sheekaysto. dee hadda xaaskiisii bay tahayba already waa u mehersan tahay. soo markaa si uu arinka u wareysto iyo xaalkuse u jiraan buu iyada oo inay u wacay shirqoolkana ay i dhigtayna uu u weydiiyo. laakiin way ismeermeerisay iyadoo idafiraysa. yani iyadoo dafirayso dee maba aqaanba gabadhaale bay dee ismeermeerisay. markii dambe ayay qiratay. yani markii ismeermeerisay in badan uu ku celceliyey hadalkii uu ku kulkuleliyey bay qiratay inay aniga aada i necab tahay. yani inay aada oo dhanba i necab tahay. waa hadda gabadhay saaxiibta ka dhiganaysay ee nafteeda u horeysay ee dadkao dhan ula dagaalantay ee maaragtay xataa cimrigeega haddii awoodo ay ugu hadiyadeyn lahayd bay hadday aadba u necabaydba. haye waxay kaloo u sheegtay inaan wax waliba ka qaatay. yani wax waloo dhanba aan ka qaatay anuu bay kaloo u sheegtay. dhinaca kaalmaha dugsiga. yani inan kaalmaha koobaad ee dugsiga aan ka geli jiray. jacaylka ardaydiina aada aniga ay ii jeclaayeen oo iyada i necabaayeen iyo isagaba dee aan jeclaaday dee intaaba oon ka qaatay markaa. waayo iyadoo iga